ra-iisul wasaaruhu hadduu ogaado miisaanka iyo awoodda uu siinayo dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya oo uu awooddiisa isticmaalayo waa ra-iisul wasaare wax badan oo waddanka ka qaban karaa. laakiin haddii uu yahay nin la soo helay oo la siiyey shaqo lagula heshiiyey wixii loo diray inuu qabanayo ama maamul goboleed ha tago ama ha iska dhaafo wax ka soo baxay male. asagu as a premier nin ra-iisul wasaare ah oo Soomaaliya ra-iisul wasaare ka ah oo dastuurkana awoodda uu siinayo ku dhaqmaya ma yahay mase ma ah. haddii uu ra-iisul wasaare sax yahay oo dastuurka awoodda uu siinayo uu ku dhaqmayo dalkan wax badan ka qaban karaa. laakiin hadduu yahay nin la soo helay ama uu madaxweynuhu asagu isu soo helay wax macno ah uu soo kordhinaa ma jirto. qof wax ka dhigaysana ma jira xataa ama tag ama iska dhaaf. لأنه waxaa loo baahan yahay oo la isweydiina ra-iisul wasaaruhu horta ma yahay ra-iisul wasaare. that's the question. and Roble waa inuu caddeeyo oo dadka Soomaali u caddeeyo ku qanciyo inuu ra-iisul wasaare yahay iyo inuu shaqaale ka tirsan xafiiska madaxweynaha yahay. horta waa inuu noo kala caddeeyo markaasaan aqbalaynaa.